بقول إيه شن سنة جرا عالنا وانا هاي راشين واللي إسي سكر بريد بر سليت واللي إسي خير الله سي انت سودي كنت دي ليس والله خير سي hay'adda maaraynta masiibooyinka waanu mahadcelinaynaa annagoo ah curyaamiintii dalka oo ku curyaamay dalka u curyaamay waanu mahadcelinaynaa waxaan ahay dadka aragga naafada ka ah oo ku waxyeeloobay dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacaya maanta waxaan noo yeertay dawladda Soomaaliya oo gargaar soo gaarsiisay degmada meesha waxaan ku fadhiyaa raashin ka kooban haaf bariis ah haaf bura haaf sonkora iyo caag saliid ah hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa maanta degmada Balad Xaabo ee gobolka Gadow waxa ay deeq gargaar ah ugu qaybisay qoysas danyar ah dhawaan dagaaladii magaaladan ka dhacana saameyn adag ka soo gaartay gargaarkan ayaa ka koobnaa qaybaha kala duwan ee raashinka sida bariis bur sonkor saliid waxaana ka faa'iideystay 800 oo qoys oo ka kooban danyar naafo iyo kuwa barakacyaal ah waxaana goobta lagu qaybinayay goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee hay'adda Sodma Dr. Cabdirashiid Maxamuud Xasan gudoomiyaha degmada Balad Xaabo Shariic Cabdullaahi Keenaan iyo mas'uuliyiin kale qaar ka mid ah dadkii gargaarkan ka faa'iideystay ayaa u mahadnaqay hay'adda Sodma iyo dawladda dhexe waxa weeyo barakac baan ahay haddii la ku soo hay'adda masiibooyinka ya dawladdu soo gaarsiisay way ku mahadsan tahay maamulku wuu ku mahadsan yahay maaraynta masiibooyinka soo gaarsiisay burle saliidle bariisle waana soo gaarsiisay ilaahay baa ku mahadsan waa u mahadcelinaynaa ayagana masiibooyinka hay'adda masiibooyinka dawladda maamulka kulli waa u mahadcelinaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa la isiiyey bariis iyo bur iyo sonkor iyo saliid yaa la isiiyey ilaahay waa mahadale waxaan u mahadcelinaynaa dawladdana soo gaarsiisay hay'adda masiibooyinka ilaahay ka sukow waxaan ku mahadinaynaa dawladda Soomaaliya meel kasta oo joogta raashinka caawimaada anaga colaad ay nagu socota oo wax qaxay iyo wax rafaaday iyo wax dhintay intaba la leeyahay dawladda Soomaaliya deeqdi ay noogu daaqdo ilaahay nooga soo qaaday wayna soo gaartay si wanaagsan baana noola siiyay raashinka nala siiyayna waxa ka mid ah bur saliid bariis sonkor baana la siiyay wayna ku mahadsan yihiin dawladda noo soo garatay oo ilaahay nooga soo qaaday 105 sano jira caalina waan ahay raashin wali isi sokor bariid bur saliid wali isi khayr allah si inta soo kunta diibaysa wallahu khayr si waxaan u mahadcelinayaa hay'adda masiibooyinka maaraynta masiibooyinka iyo dawladda federaalka caawimaadda ay nala soo gaartay taasoo na soo gaartay oo si nidaamsan oo sharaf leh aan ku qaadanay ayaan haaf sokor iyo haaf bariis iyo cagad saliid waaye gudoomiyaha degmada Balad Xaabo Shariic Cabdullaahi Keenaan ayaa u mahadnaqay hay'adda Sodma isagoo sheegay in gargaarkan dadkii mudnaa ay ka faa'iideysteen in aan uga mahadceliyo dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii baaqayagii hore ka jawaabtay dadkeeda shacabkana soo gaarsiisay deeqdaas uu sheegay wasiirka 800 oo qof oo intaasoo nooc isugu jirto sida ay noo sheegtay dawladda hadda waana phase koowaad phase labaad iyo phase saddexaad baa diri doono in intaan ay ka soo badisana waa jeclaan lahayn maxaa yeelay dadku tirada barakacyaasha ee magaalada ka barakacay aad bay intaan uga badan yihiin intaan hadda dadkii la siiyeyna macnaha waxaan isleeyahay qofkii macnaha mataqaanaa wax la'aana maanta wax way u taraysaa aad iyo aad baan marka dawladda ugu mahadcelinayaa waxaan rabnaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkaa uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka oo runtii shaqadan la'aantooda ay qabsoomi lahayn maamulka degmada iyo wasiirka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale shacabka oo runtii gobonnimo muujiyey oo si nidaam leh u qaatay macnaha raashinkii ee dawladdu u keentay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sharafka aad u ilaaliseen nidaamkana aad u dhowrteen agaasimaha guud ee hay'adda Sodma Dr. Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa ka warbixiyay gargaarkan iyo tirada dadka faa'iideystay maanta oo taariikhdu tahay 26 bishii 8aad 2025 saa wada aragtaan waxaan joogaa magaalada Balad Xaabo
annagoo fulinayna amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in dadkii bartaan ku barakacay maalmihii la dhoweeda lasoo dhaafay dagaallada ka dhacay si loo gaadhsiiyo macaawino raashin ah waxaan maanta bartaan ku qaybinaynaa aniga iyo guddoomiyihii degmada guddoomiye shire 800 oo qoys oo raashin ah raashinkaasi wuxuu iskugu jiraa bur sonkor bariis iyo saliid sidaa wada og tihiin waxaan maalmihii ugu dambeeyey aan joogay magaalada balad xaawo xaaladahaynu waa aad bay u fiican yihiin waxaan bartaan uga mahadnaqayaa maamulka degmada balad xaawo oo ugu horeeya guddoomiye shire oo shaqadan isaga ka sokow aysan qaban lahayn haddaan isaga haysan aad iyo aad baa guddoomiye u mahadsan tahay sharaf iyo karaamaan kuu hayaa waan soo noqon doonnaa intaan waa hordhac waxaan qaybinna maanta 800 oo qoys fayska labaad iyo fays saddexaad baa jiri doona insha allah haddii ilaaha yidhaaho yuunus duraan cali warbaahinta qaranka balad xaawo